بسم الله الرحمن الرحيم أنا هو محب إسماعيل عبد الرابله وننك جيفة ولالك يجارنا إسماعيل عبد الرابله ونتبر وعي يتاج ولا يري ننك وفينش كليهيسة وحسبها هي إن لو قاعد الدبدها تبر إنه هينا مالها حفايدي سنوا أودين عنيه سنوا أودين حبض أمد أنا أودين أنا هو حنوسن ولوج ليه هي 5 سنة وحنوسنيه 5 سنة وحنوسنيه 6 سنة لين عادلكو يلا 2 سنة واسعودي لكن 6 سنة هذا واجفة واحد دكاتره عافماد wax aan u geey wax kala midna ma laha socodkii hore oon geey ma ahayna socod kale ma geeyno oo tabaraan u waay waxay yireen infection xididada raaca jiro maskaxdan xoogo way kala wareegtay marka wuxuu soo baahan yahay dibadda kaliyaha iyo calooshan way buurbuuraysaa kaliyadan horta way soo baxdaa iyada marmarka qaarkood furdigayba soo tiraa marna way shiidaa waxas cunay wax kala midna ma cudur kale waanu maleynaa kulli aniga waxba ma kala ogeey laakiin say igu soo yareen waa nimanka dhaqaatiirta warqadii isoosiyeen hata waga luntay roobkii oo maalin dhaweeto badnaay iga raacday ilaa meeshan degana waa meel iska buushashe marka dibkaas ay haystaan may inta waxba laga qaban kariin dibadaas in loo qaado meeshaas maxay ahayd hindiimiya ma aqaano meelahaas ayaa loo qaaday ugu yirin ma u awoodiyaan tabarno ma haayo taagno ma hayo koobadiisa caana iyo xafaayadiisa ma awoodinbo oo gacanta waxay ugu jirmala hadda saaki hal haafo caane wiila xali gabadha xali ii keenta wali ma aan siinin xogo sharaabna way laba xabo cambe iyo xabad moos ii keentan u shiiday sharaabkii aan siiyay caani hadda waa wiil hadeeran rabaa inaan siiyo xafaayad hata uma maya malihin guriga waa kilo gabar baa iska leh oo $10 waa bishan kula labana waa liigu leeyahay mana haayo wax gacanta igu jirna ma laha waxaan rabaa dadkaas muslimiinta ah oo magaalada ku nool meelay joogaanba inay caawiyaan in Ilaahay caawiyo waa qando madaxa xididada waa istaagayeen gaw biyaha markaad si tira waa iska qabana iga dhaaf isku leeyahay sidaas jirta xalkayga waa noocaas gacanta ku qabana inaad firiisiso wax siiso markaad damcadid madaxa istaaga xididadaas waa istaagayeen labadaas xidid waa istaagayeen dhag markaas waxaan ka mariyaa saliid xogo aan ka soo qaatay xabad sowdo aan madaxa ka mariyaa jirkaan u mariyaa marka dibkaas ay haystaan waxaan u farayaa wixii islaane oo umada nabi maxamed oo jirka islaameed ku yaalo inay caawiyaan ilaahay baa caawin leh inay caawiyaan oo maanta gacan qabtaan oo ninkan xanuunkiisa geeridan waa xaq haduu qofka dhintan waa wax ma taqaana meel ku hagaag haduu caafimaadna waa meel ku hagaag geerina hadda ma haysto nololna ma haysto ilaahay baa gacanta ugu hay waxaan jeclahay inay dadkii islaamka umada rasuulka codkayga maqlaayo inay ma taqaana ay caawiyaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي محمد يوسف لما dadka muslimiinta oo fiidiyogan daawan doonta waxaan u sheegaynaa ama la socodsiinaynaa in maanta oo ay tahay jimce 22 November ay ku beegan tahay inaan u nimi reer dhibaataysan oo ku dhibaataysan kaamka siliga reerkaas dib weyn ayaa haysta oo ah qofka halka jiifa oo mataqaan shakhsiga dhibaataysan walaalkeena oo muddo xanuunsanaa 5 sano ah xanuunka la jiifay si noo sheegeen ama fiidiyo ka daawan doontaan wax tabara ama wax mataqaan caawinaada maysan helin waana qof dhibaataysan oo mariida 5 sano waxa jiifay oo halka jiifay cid garab siisana ma laha anaga ayaa mataqaana groupkan hadda meeshan ka muuqdo fiidiyoon ka muuqdo ayaa isxilqaam ahaan meeshan u yimi oo wixii markaa karaankooda la soo gaaray warbixina mataqaana ka soo gudbinay marka waxaan doonaynaa dadka muslimiinta ah dhammaan meel kasta ay joogaan dunida oo dhan mataqaan dal iyo dibadba in dadkaas la soo caawiyo khaasatan walaalkana dhibanaha ah nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa dadka muuminiinta ah hadda wuxuu ku misaalay waxa weeye hal xubin weeye marka
dhammaantiina waan danqanaynaa waxaan ka danqanaynaa walaalkeena xanuunsan oo muddo waxa way xanuunsanaa oo mataqaanaa jiifay xataa maamada si noo sheegtay waxa ay tiri yani xataa xafaayadda wax looga bedelo ma laha iska daa waxa way in wax mataqaanaa qudutaankii iyo waxyaabihii kale munaafacaadka iska badaayay wax xafaayadda looga bedelo ma laha waxyaabo badan bay noo sheegtay xataa wadada dhuuni inuu ka adag yahay mararka qaybtu inuu iska istaagayaba waxba uusan qaadanayn marka waxaan leenahay dhammaan dadka muslimiinta ah wal khayr Allahna siiye waxa way dadka waliba khaasatan reer Garowe khayrka waa jeceshiina dad badan baa wax tarteen oo hadda ugu dameyso waxa way wax badan baad waxa way sameeyeen wareerkan waxa way la soo caawiyo khaasatan ninka xanuunsan walaalayaal qof kasto codkeena u soo gaaray muuqaalkan waxa la doonayaa inuu si dhaqso leh maaseedka ugu soo jawaabo dadka muslimiinta waxa way dhibaataysan in loo soo gurmado khaasatan ninka xanuunsan oo mariidka ah oo muddada inta leeg xanuunsanaa waxa la rabaa fadhiga in laga kaco oo la soo caawiyo walaalayaal waxa way adduunyada wax la isku yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala koonkan dadka uu arlada ku caamimay waxa way waa la isku fiirinaya Ilaahay ma waayin mataqaan shakhsiyan mariidka isaga akeensaday isagana dhibka ka qaadi kara marka waxba ma waayin laakiin inaga oo muslimiin ah ayaana lagu fiirinaya marka walaalayaal islaamnimadu waa naxariis waa waxa way waa raxmad waa isku gargaar waa isku gurmad weeyaan marka waxaan doonaynaa dadka muslimiinta oo maqlaya bulshada qaybaheeda kala duwan mataqaaniisha waxa way inay arintaas sida ugu dhaqsaa badan ay ugu soo mataqaan reerkaas u soo caawiyaan intaas aan leeyahay wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh